sannadu waxay maraysaa hilaadii 1887kii. laba nin oo walaalo ah ayaa iman doona magaalada Detroit, kuwaasoon haysan wax ka badan riyadooda awoodda badan iyo wadajirkooga walaalnimo. keliya dhowr sanno kadib imaashahoodii Detroit waxay madax ka noqon doonaan kumbanigii ugu weynaa caasimadda ee lagu farsamayn jiray injiinada, waxayna sidoo kale la shaqayn doonaan ninkii sida kama dambaysta u bedelay suuqa samaynta gawaadhida, Mr. Henry Ford. laakiinse mid ayna dad badan ogeyn ayaa inay labadan walaalihii ahaayeen cidda sida weyn uga caawisay Henry Ford inuu gaadho guulo waaweyn. waxayna ahaayeen kuwii dhisay ku dhowaadba qalabada laga samaynayay gawaadhidiisa. iyaga la'aantoodna kumbaniga Ford muusan ahaadeen midka uu maanta yahay. iyaday sidaasi tahay, haddana waxqabadkoodu waxa uu ahaa midaan si weyn u muuqan. waxayna ahaayeen qaar ku qarsoon xadhka Henry Ford, balse wada shaqayntooda Henry Ford muddo yaroo kooban kadib waxay isku bedeli doontaa xifaaltan iyo tartan adag oo dhex mara, kadib markii ay go'aansadeen inay si rasmi u furtaan kumbanigoodii gaadhi ee ugu horreeyey. isla markaasina waxay ku biiri doonaan tartanka suuqa gawaadhida caalamiga ah, waxayna noqon doonaan gawaadhida ay sameeyaan kuwa labaad ee loogu iibsiga badan yahay guud ahaanba dalka Maraykanka. waxayna dhaxal ahaan ugaga tegi doonaan suuqyada gawaadhida fajax, kuna xardhi doonaan magacyadooda sumcad mintii ugu saraysay. haddaba ku soo dhowaada saaxiibayaal kanaalkeena, kanaalka dadka hamiga sare leh ee Hansare. 1860meeyadii waxaa dhashay laba wiil oo walaalo ah oo lagu kala magacaabi jiray John iyo Horace, tuulo yar oo ku taala koonfurta fog ee gobolka Michigan, midaasoona lagu magacaabi jiray Niles. halkaasoo ku lahaa aabahood goob yar oo lagu dayactiro laguna hagaajiyo mishiinada doomaha ka xumaaday. ku koristoodii tuulada yar ee Niles, labada yar ee walaalihii waxay ahaayeen qaar ku sheekaysta kuna tashada mar kasta inay noqon doonaan mustaqbalka qaar si adag u shaqeeya oo hardworkerisa, si ayna hadhow markay weynaadaan mustaqbalka uga warwarin xaaladooda dhaqaale. xilliyadaasi marka loo eego xaaladday ku korayeen labadan wiil ee walaalihii maysan ahayn mid aad u fudud oo waxay ahayd mid rafaad ah oo adag. waxayna ka mid ahaayeen qoysaska ugu faqiirsan tuuladooda xilligaasi. bilowgan adag ay la hana qaadeen walaaluhu muusan noqon mid kala fogeeyey quluubtooda, taa beddelkeedu waxay noqdeen qaar yeesha xidhiir walaaltinimo oo qoto dheer. inkastoo daada u dhexaysay labadan walaalihii ay ahayd 4 sanno, haddana waxay ahaayeen qaar wadaaga han iyo himilo isku mid ah. waxayna ahaayeen qaar qabtaa shaqo kastoo ka soo horbaxda si ay u kaalmeeyaan qoyskooda. haddaba sannadu markay ahayd 1882kii, qoyskooda ayaa go'aansaday inay ka guuraan tuuladoodii Niles, iyagoona u guuray dhankaas iyo magaalo lagu magacaabi jiray Battle Creek. wakhti yar kadibna waxayba u sii dhaafeen dhankaas iyo magaalo kale oo lagu magacaabi jiray Port Huron. safaradan isdaba joogina waxaa sababayay burbur ku yimiday ganacsigii ay ku lahaayeen faamiligu tuuladoodii Niles. intaasi kadib imaashihii magaalada Port Huron, John iyo Horace waxay ahaayeen qaar ka dhinac shaqeeya aabahood oo ka shaqayn jiray kumbani lagu magacaabi jiray Upton Manufacturing Company, kaasoona ku takhasusay samaynta injiinada ku shaqeeya uumiga iyo sidoo kale makiinadaha qalka ka saara midhaha. halkan ayayna ahayd meeshii ay labada walaalihii ay kaga takhasuseen barashada cilmiga mishiinada, kana kasbadeen waaya aragnimada iyo experience-ka aan caadiga ahayn. midan oona ka dhigtay walaalaha qaar daacad u noqda shaqadooda, jacayl hor lana u qaada mishiinada iyo cilmigooda. balse John oo ahaa walaalka weyn muusan ahayn mid si aad uga helay joogista magaalada Port Huron. taa beddelkeedu waxuu ahaa mid mar kastaba ku fikira inuu magaalooyin kale u safro, isaguna aaminsanaa inuu heli karo fursado ka ballaadhan midda magaaladan. markii ay daadiisu noqotay 21 sano jir, wiilkii John ahaa waxa uu go'aansaday inuu gebi ahaanba isaga huleelo magaalada Port Huron, isagoona afka saaray dhankaas iyo magaalada Detroit oo ahay saaxiibayaal xilligaasi magaaladii ugu weyneyd uguna caansanayd dhanka wax soo saarka warshadaha. oo magaaladaasi waxay xarun u ahayd saaxiibayaal ku dhowaadba gebi ahaanba warshadaha waaweyn ee dalkaasi Maraykanka. kadib imaanshihii magaalada Detroit, John waxa uu ka shaqo bilaabay kumbani lagu magacaabi jiray Murphy Iron Works, oo ahaa kumbani soo saari jiray steam boilerska ama uumi bixiyayaasha biyaha, oo waxay ahaayeen qaar kululeynaya biyaha kadibna waxay u bedelayeen uumi, kadibna uumigaas ayaa ahaa awoodda dhaqaajinaysay injiinka. haddaba qalabkan ayuu ahaa kumbanigu
miduu badankiisa u samayn jiray ciidamada badda ee Mariniska ee dalka Maraykanka ee waagaasi si ay ugu isticmaalaan markaasi uguna dhaqaajiyaan injiinadooda. Haddaba John ayaa ahaa mid mushaharaan uga qaadanayay kumbanigan wiil kasta $16 iyo badh oo wakhtigaasi isaga ahayd lacag aad u fiican. intaasi kadibna haddaba saaxiibayaal muddo 1 sano kadib waxaa markaan isaguna soo caga dhiganaya isla magaalada Detroit wiilkii ka yaraa John ee lagu magacaabi jiray Horace. haddaba Horace markii uu soo gaadhay magaalada waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay walaalkii John, isagoona si weyn ugu farxay go'aanka uu qaatay walaalkii ee uu markaasi ku yimid magaaladan Detroit. iswaraysi iyo ismarxabaysiin kadib John waxa uu isla markiiba shaqo uga raadiyay isla kumbanigii uu ka shaqaynayay. dadaal dheer oo uu maray middan waxa uu ugu dambeyn ku guulaystay in mar kale walaalkiisa yar ay ka wada shaqeeyaan isla hal goob iyo hal kumbani. lacagtuu mushaharaan u qaadanayay Horacena waxay ahayd mid ka dhow midda walaalkiisa weyn oo waxay ahayd $16 iyo badh wiigii lacagtii xilligaasi. halkan intii ay ka shaqaynayeen walaaluhu waxay ahayn qaar aad ugu faraxsan shaqadooda, balse saaxiibayaal shaqada ay qabanayeen maysan ahayn mid sahla. biraha culayska badan ee la qaadayo, dhimbiilaha ka imanaya biraha la dhalaalinayo, kulaylka saa'idka ee dhismaha, qiiqa sunta ee ka soo baxaya waxyaabahaas la dhalaalinayo, midaasoona ugu dambeyn saameynteedu ka dhigtay wiilkii labada walaalaha weynaa ee John miduu ku dhaco xanuun lagu magacaabayay tuberculosis, kaasoona ahaa mid si weyn u saameynayay sonbabada iyo dhammaanba hawo-mareennadoo dhan. middan oona siday u badan tahay uu ka qaaday sumahaas iyo hawada aan fiicnayn ee warshadda. xanuunkan ayaa ahaa saaxiibayaal wakhtiga xanuunka labaad ee sababa dhimashada ugu faraha badan dalka Maraykanka. xanuunkan ku dhacay John waxa uu ahaa mid ay si weyn uga walaaceen uguna murugoodeen dhammaanba qoyskiisu, waxaanu John xanuunkan la jiifay muddo dhowr bilooda. middan ayaana ka dhigtay inuu qaato daawooyin iyo kiniino tiro badan, balse saaxiibayaal daawooyinkaasi uu qaadanayay John waxa si gaara uga mid ahayd daawo lagu magacaabayay Elixir 130. haddaba daawadan ayaa saaxiibayaal waxyaaba ay ka koobnayd ee ay markaasi ka samaysnayd ay ka mid ahaayeen maadada alkoholka, midaasoona ka ahayd guud ahaanba 42% gebi ahaanba waxyaaba ay ka kooban tahay daawadan. haddaba isticmaalka badan ee uu isticmaalayay daawada John waxay u horseedi doontaa kana dhigi doontaa hadhow toolaba noloshiisa mid qabatima cabista alkoholka. haddaba intii uu John xanuunsanayay, dhanka kale walaalkiisa yar Horace waxa uu ahaa mid raadinayay shaqo kale si uu u dabaro noloshiisa iyo midda walaalkii. waxaanu ka tegay warshaddii iyo kumbaniguu ka shaqaynayay, waxaanu tegay kumbani kale oo uu lahaa nin lagu magacaabi jiray Henry Leland, midkaasoo isaguna hadhow toolaba aasaasi doonaa 2 kumbani oo ka mid ah kumbaniyaadkii soo saari jiray gawaadhida, kuwaasanoo kala ahaa Catholic iyo sidoo kale weliba Lincoln. balse markan waxa uu lahaa warshad soo saarta oo samaysa qalabada spare partiska mishiinada, sidoo kalena waxay ahayd goob lagu dayactiro mishiinada. haddaba warshaddan ayaa noqon doonta meeluu Horace ka kasbado waaya aragnimo iyo aqoon baaxad leh oo aanu hore u ogeyn. soo kabashadii John. muddo kadib waxaa mar kale caafimaadkiisii dib u helay John, waxaanu ka kacay xanuunkii uu inta muddada ahba sariirta la yaalay. markan walaaluhu waxay isku waafaqayaan iskuna raacayaan inay raadsadaan shaqo kale, balse markan aan ahayn mid waxyeelo soo gaadhsiinaysa caafimaadkooda. intaasi kadibna sannadu markay ahayd 1829 walaaluhu waxay u hayaameen una socdaaleen dhankaas iyo dalka Canada, halkaasoo intii ay joogeen ay ka heleen shaqo kumbani lagu magacaabi jiray Dominion Typography. kumbanigan oo ahaa kumbani farsamayn jiray soona saari jiray birintarada waaweyn ee lagu daabaci jiray dada, waxayna halkan labada walaalihii ku barteen intii ay ka shaqaynayeen kumbanigan khusuusiyaadka hoose ee samaynta mashiinada. isla xilligan intii ay joogeen walaaluhu dalkan Canada waxa ay qaar sameeya dokumentarigoogii ugu horeeyay ee ay ku soo bandhigayaan isku-daygoogii ugu horeeyay ee ay ku samaynayaan shay cusub oo dhaqaaqaya oo ay iyagu gacmahooga ku sameeyeen. intii lagu guda jiray wakhtiyadan, Horace ayaa ahaa mid ikhtiraacay oo sameeyey qalab yaroo lagu xidhi karaya baaskiladaha, midkaasoona u saamaxaya socodka baaskiladaha inuu noqdo mid siman oo smuuth ah, isla markaasina waxa uu meesha ka saarayay qalabka yar
ee uu Horace ikhtiraacay isliskii biraha, taasoo ka dhigtay socodkii baaskiilada mid ka fudud kana dheeraynaysa sidii hore. Haddaba guushan iyo samaynta ikhtiraacaysan cusub ee Horace waxay walaaluhu la wadaageen mashruucoogan mid ka mid ah maamulayaashoodii kombanigii ay ka shaqaynayeen, midkaasoo lagu magacaabi jiray Fred Evans. Haddaba intaasi kadib wadajirka saddexdooduba waxay aasaaseen kombani ay u bixiyeen Evans and Dodge Bicycle Company. sanadu markay ahayd 1897kii kombanigan ayaa ahaa haddaba saaxiibayaal mid ay ku sameeyaan baaskiiladaha, iyagoona islamarkaasina ku dabaqayay ikhtiraacii uu Horace keenay ee cajiibka ah wakhtigaasi isaga. waxyar kadibna kombanigoogii waxa uu noqday mid guulo laxaadle ka soo xaqiijiya suuqa, oo waxay noqdeen baaskiiladahoogii qaar ay bulshadu ka helaan oo ay la dhacaan sancadooda. Fred Evans oo si weyn u yaqaanay una lahaa xirfadda suuqgeynta ayaa ahaa mid u safrayay meel kastuu ka jiro bandhig dalka Maraykanka si uu ugu soo bandhiga halkaasi iyada ah baaskiiladaha ay soo saareen kombanigoodu. xayeysiimahan iyo advertisementskan ay u sameynayeen iyo sidoo kale ikhtiraacoogan oo waagaasi ku cusbaa dunida baaskiil samaynta waxay ka dhigtay kombanigoodii kombaniga ugu weyn ee soo saara baaskiiladaha guud ahaanba dalka Canada. isla markiiba iibka baaskiiladoodu waxa uu noqday mid aad iyo aad u wanaagsan, midan oona ku dhiirigelisay inay fidiyaan markaan kombanigooda, iyagoona ku ballaadhiyey kana furtay xarumo kala duwan magaalada London, Ontario iyo sidoo kale Montreal. balse saaxiibayaal xiliyadan oo ku beegneyd dhammaadkii qarnigii 19aad 1899kii ganacsigan baaskiiladu waxa uu noqday mid aan u fiicnayn sidii berigii hore. taasna waxaa sababaysay farabadnida kombaniyada cusub ee soo saaray baaskiiladaha iyo tartanka suuqa baaskiiladaha oo xooganaa xilligaasi. balse labada walaalaha oo markii horeba lahaa qorshayaal ka waaweyn midkan baaskiiladaha ayaa go'aansaday inay iska iibiyaan sheerkii ay ku lahaayeen kombaniga oo ahaa $7,500 lacagta xilligaasi, maantana uu dhigmisay ku dhowaad $300,000 qiimaha maanta. waxaanay dib ugu soo noqdeen walaaluhu dhankaas iyo magaalada Detroit, halkaasina ka aasaaseen kana yagleeleen warshad ay ku farsamaynayaan kuna samaynayaan injiinada, waxayna u bixiyeen kombanigan Dodge Brothers. laakiinse wax badan kamaysan ogeyn inay si gebi ahaanba u bedeli doonaan fikraddii laga haystay mashiinada iyo tayadoodaba. haddaba bilowgiiba walaaluhu waxay ahaayeen qaar warshadooda ka shaqaalaysiiya tiim shaqaale ah oo ka kooban 12 shaqaale, waxaanay walaaluhu ahaayeen qaar markaasi soo iibsanayay qalabbo waaweyn oo qaali ah si ay ugu socodsiiyaan shaqada warshadooda, iyagoona halkaasi ku samaynayay injiinada kuna dayactirayay noocyada kala duwan ee injiinada. xagga ay dadkuna ahaayeen qaar warshada keena qalabada ay rabaan in loo dayactiro sida cagaf-cagafyada beeraha, mashiinada loo yaqaano stationary engineska, pipe setting machiniska iyo qalabo kale oo kala duwan. wax ka yar 3 bilood oo quriyaata warshadoodu waxay ahayd mid loo aqoonsaday inay tahay goobta ugu fiican ee lagu dayactiro injiinada. xagga ay macaamiishuna ahaayeen qaar uga yimaada warshadan Dodge Brothers koorna kasta oo ka mid ah magaalada Detroit, iyagoona xitaa jaraa'idada ka soo baxay magaalada Detroit ay ahaayeen qaar ku sifeeyay warshadan midda ugu horeysa dhanka wax soo saarka iyo dayactirada injiinada magaalada Detroit. intaasi kadibna Dodge Brothers waxay isbarteen nin lagu magacaabi jiray Ransom Ili Oldis oo ahaa mid ka mid ah raggii ugu horeeyay caasimadda ee bilaaba soo saarista iyo samaynta gawaadhida, waxaana ahaa wakhtigaasi isaga mulkiilaha kombaniga Oldis Motor Works oo ahaa kombani soo saari jiray gawaadhida. waxaanay ka dalbadeen walaaluhu inay u sameeyaan kombanigiisa wixii qalab ah ee uu baahan yahay. intaasi kadibna Ransom wuxuu ahaa mid ku tijaabiya inay awoodi karaan walaaluhu inay bal soo saari karaan mashiinada iyo transmissionada mid ka mid ah gawaadhidiisii oo lagu magacaabi jiray Model R Carpet Dash, kaasoona ahaa gaadhi miisaankiisu yahay mid aad u fudud laguna kalsoonaan karo. kadib intaasi wixii ka dambeeyey walaaluhu waxay go'aansadeen soo saarista injiinkan iyo transmissionka gaadhigan. ugu dambayna waxay ku guulaysatay warshadii walaaluhu ee Dodge Brothers inay soo saaraan qalabkii looga baahnaa.
weliba markaani ah mid aad uga tayaysan midkii uu hore u yaqaanay odaygii Ransom ahaa. Ku dhowaadba hal sano ay u shaqaynayeen kombanigan Ords Motor Company waxay ahaayeen qaar si weyn uga caawiyey kombanigan wax soo saarkii iyo tayadii gaadhigan Model R, midanoona ka dhigtay iibkii gaadhiga mid samada ku dhega, isagoona noqday sanadkaasi isaga gaadhi ku shaqeeyay gaasoliin midkii loogu iibsiga badnaa gebi ahaanba dalka Maraykanka. guulahan waaweyn uu gaadhay kombanigan Ords Motor Company waxa uu ahaa mid sidoo kale si weyn u caawiyey kombanigii walaalaha maadaama uu ka soo gelay mashruucan iyo qandaraaskan kharashaad aad u tiro badan, taasoona ka dhigtayba kana caawisay labadan walaalihii maalgelinta mashruucoogii xigay iyagoona dhul weyn ka iibsaday caasimadda salkana u dhigay ganacsigoodii kuna ballaadhiyey magaalada Detroit wax soo saarkoodii warshadeed midanoona u horseedi doontaa la kulankan si gebi ahaanaba u bedeli doonaa suuqa baabuurta iyo samayntooda. ninkaasi cid kale ma aha waa Henry Ford. sanadu markii ahayd 1902 Henry Ford oo waqtigaasi isaga ah daadiisu marisay daada 39 jirka ayaa ahaa mid sameynayay isku daygiisii bilaabista kombanigiisii saddexaad kadib laba isku day oo hore ka soo fashilmay. waxaanu ahaa Henry markaan mid raadinayay cid ka caawisa samaynta qalabada kala duwan ee uu u baahan yahay si uu u sameeyo baabuurtiisa. xilligaasi isaga ahna waxa uu markiiba maqlay sheekada kombaniga Dodge Brothers iyo laba nin ee walaalaha, midaasoona ka dhigtay Henry mid si shakhsiya ugu taga halkii ay ku taalay warshadu, iyadoona halkaasi iyada uu kula kulmay si weji ka wejiya labada walaalaha, midaasoona Henry ka dhigtay mid si weyn ula xajaba waxqabadkooga iyo kartida labada nin ee walaalaha ku jirta, isagoona markiiba u soo bandhigay inay kontaraag iyo wada shaqayn dhex marta labadooda kombani. dhanka kale walaalaha ayaa ahaa iyaguna qaar dhankooga si weyn u soo dhoweeyay qorshaha Henry, iyagoona ahaa qaar u ballan qaadayay Henry Ford inay si hagar la'aan uga caawin doonaan samaynta qalabada kala duwan ee uu u baahan yahay si uu u dhiso baabuurtiisa. balse waqtigaasi isaga saaxiibayaal oo ku beegnayd 1902 Henry Ford muusan ahayn ninka cajiibka ee aynu maanta badigeenu taariikhda ku hayno. taabadelkeeda xilligaasi isaga ee uu ganacsigiisa bilowga ahaa waxa uu caan ku ahaa Henry Ford qaadashada riskiyo waaweyn, taasuna ku sababi jirtay marar badan inuu khasaare lacaga aad u fara badan. haddaba labadan walaalaha oo midaasi ka dharagsanaa ayaa heshiiska Ford ka dhigay mid muddadiisu kaaban tahay oo ay tahay 1 sano, haddii loo baahdana hadhow tole lasii kordhin karo, balse marka hore heshiisku waxa uu ku eegyahay 1 sano. haddii halkaasi sanno ay isfahmaan labada kombani, heshiisku waxa uu noqon doonaa mid lagu daro sannado kale oo lasii cusboonaysiiyo, haddii kaloo la isfahmi waayena sidaas ayuu ku dhammaanay heshiisku markuu dhammaado 1 sano. midan oo aynu u arkayn walaaluhu inay tahay xalka keliya ay ku kantarooli karayaan khasaaraha ay macquulka tahay inuu ka soo gaadhay heshiiskan. haddaba si ay u hirgeliyaan heshiiskan, walaaluhu waxay bilowgiiba ahaayeen qaar soo gaadhsiinaya kombaniga shixnado daraasiina oo ay ka buuxaan qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay gaadhigu, balse saaxiibayaal markii la soo gaadhay xilligii ballantu ahayd inuu Ford ku bixiyo lacagta alaabtan, Ford muusan ahayn mid lacagtii ku bixiyey wakhtigeedii, taasoona ka dhigtay walaalaha qaar aad uga xanaaqa midan, iyagoona go'aan ku qaatay inay kansalaan heshiiska qalabadoodana ay u iibgeeyaan meelo kale. balse intii ayna fulin go'aankoodaas waxaa ku soo dhacday fikrad aad u cajiiba. halkii ay ka qaadan lahayn lacagta shixnada oo dhanay $7,000 lacagtii xilligaasi, waxayba ugu dareen $3,000 oo jeebkooda, iyagoona ka codsaday Henry inay 10% sheer ah ay ka gataan kombanigiisa xilli uu ku dhawaaba kombaniga saddexaad ee Henry Ford mid kaca oo musallafa. haddana iyadii sidaasi tahay Henry Ford muusan ahayn mid ay cajibiso oo la dhaca fikradan, waxaanu isku dayay inuu diiday heshiiska, balse saaxiibayaal nin dayn lagu leeyahay dooq ma leh. Henry waxa uu ahaa mid ku khasbanaaday inuu iibiyo 10% ka mid ah kombanigiisa. intaas wixii ka dambeeyayna walaaluhu waxay ahaayeen qaar sii wada samaynta qalabada uu u baahan yahay kombaniga Henry, siina wada heshiiskii hore maadaama ay imika ku leeyihiin sheer. guusha kombaniga Henry Ford uu gaadhaa waxay la mid tahay guushooda, inkastoonay ahayn barashadoodii koowaad mid wanaagsan. haddana wixii ka dambeeyay sheerka ay ku yeesheen kombaniga waxa uu noqday xidhiidhkoodu qaar isaga dhow sidii hore, sidoo kalena waxay ahaayeen qaar samaystay xidhiidh wada shaqayn oo qoto dheer. go'aankan walaaluhu ku gateen sheerka 10% ka mid ah kombaniga Henry Ford waxa uu ahaa go'aan iyo tallaabo saxan oo ah mid maskaxaysan, maadaama uu marba marka ka sii dambeysay uu sii korayay kombaniga Henry Ford. walaaluhu waxay ahaayeen qaar samaynayay faa'iido aad u tiro badan, maadaama uu sheerka kombaniga Henry Ford ay ku lahaayeen uu ahaa mid maalinba maalinka ka sii dambeeya gaadhayay malaayiin iyo malaayiin $. sidoo kalena waxay ahaayeen qaar lacago aad u tiro badan ka samaynayay
sameynayay iibka ay ka iibinayeen qalabadooda kumbaniga Henry Ford, kaasuna ahaa mid uu ka sameynayay baabuurtiisa intii u dhaxaysay 1903 ilaa laga soo gaadhayay 1914. waxaana ka mid ahaa gawaadhidii uu Henry u isticmaalay samaynta qalabada uu ka soo iibsanayay walaalaha. mid ka mid ah gawaadhidiisii dunida sida weyn caanka ugu noqday ee Model T, kaasoona Henry u isticmaalayay soo saarista modelkan markii ugu horeysay sanco ku cusbay dunida baabuurta, oo ahayd inuu isticmaalo warshadiisa qalab awtomaatig ah oo qaadqaadaya isla markaasina warwareejinaya keenayna qalabada culculus meeshii looga baahan yahay, taasoona u ogolaatay warshadda inay soo saarto 90 daqiiqaba hal gaadhi, taasoona ka dhigtay modelkan Model T mid ay shirkaddu iibiso malaayiin xabo, taasoona ka dhigtay warshadda Henry warshadda ugu soo wax soo saarka badan ama productionka badan dhammaanba dunida oo dhan, taasoona ka dhigtay sanadii 1914 tobankii gaadhi ee waddada socdaba inay noqdaan 9 ka mid ah gawaadhida Ford. dhanka kale walaaluhu waxay ahaayeen qaar iyaguna si weyn u korayay, taasna waxaad ka dheehan karaysay ama aad ka qiyaasan karaysay in 2 sano gudahood ay ku gaadhay shaqaalaha u shaqeeya walaalaha 5,000 oo shaqaale ah, xagga markii horena ay ahaayeen 120 shaqaale oo qoriyaata. middan oo nagu horseeday inay noqoto warshadda walaaluhu ee Dodge Brothers midda ugu weyn ee soo saarta qalabada iyo qaybaha kala duwan ee gawaadhida, taasoona ka dhigtay walaalihii hantiilayaal waaweyn oo ay adag tahay in la koobo lacagtooda. waxayna ahaayeen qaar ku kharash lacaga xad dhaaf ah, iyagoona ahaa qaar iibsanayay dhulal baaxad waaweyn, maraakiib nooca raaxada ah ee yaatiska loo yaqaano, iyo guryo waaweyn oo bangalooyin ah. inkastay gaadhin meeshoodii ugu saraysay maal ahaan iyo magac ahaanba, haddana walaaluhu waxay ahaayeen qaar wakhti la qaatay shaqaalahooga baararka waaweyn ee caasimadda, kulana caba cabitaano iyo khamri, ulana sheekaystay si caadi ah maadaamay u arkayeen inay yihiin kuwii suurtageliyey inay soo gaadhaan meesha ay maalinkaasi taagnaayeen. balse saaxiibayaal, nimco kastaaba nusqaan leh. walaaluhu sidii ay u bilaabeen inay tagaan baararka, waxay ahaayeen qaar habeen waliba oo ay halkaasi tagaan aan ka iman jirin iyagoona baarka dhexdiisa ku gelin dagaal, oo waxay ahaayeen qaar markay sakhraamaan la dagaalami jiray shaqaalaha baarka ay habeenkaasi joogaan iyo ciddii ay sanifaanba markaasi. middan ayaana ka dhigtay walaalaha qaar lagaga sheekaysta caasimadda, balse walaaluhu waxay ahaayeen qaar aan danaysiin hadallada iyo warka suuqa ku jira ee la rabo in sumcaddooda lagu dilo. taa beddelkeedu waxay sameeyeen mid ka yaabisa dadkii, maadaamay haysteen lacag aad u tiro badan, waxayba go'aansadeen inay iibsadaan dhul aad u weyn kadibna ka dhisaan baar ay iyagu leeyihiin, balse ah markan midaan hore loo arag oo 7 star ah, taasoo inay kaga jawaabayeen kuna muujinayeen walaaluhu inaan loo sheegi karin waxay tahay inay sameeyaan iyo waxaanay ahayn inay sameeyaan. sidoo kalena waxaa jirtay in mid ka mid a walaalaha waa Horace laga mamnuuco inuu soo galo mid ka mid ah kalaabadii ugu caansanaa caasimadda oo lagu magacaabi jiray Prestigious Grosse Pointe Country Club, balse go'aankan ay qaateen mulkiilayaashii kalaabku ee ahaa inay ka caadhiyaan kalaabkooda Horace waxa waa go'aankii ugu doqonsanaa ee ay cimrigooda qaataan, sababtoo ah markii uu maqlay warkan Horace waxa uu ahaa mid qaatay go'aana inay ilaabi doonin weligood. waxa uu boos dhula ka iibsaday kasoo horjeedka kalaabka, waxaanu ka dhisay guri qasri ah oo leh geerash aad weyn, isla markaasina geerashku waxa uu ahaa mid si toosa ugu soo jeeday kalaabka, oo ah mid qaadayay 12 gaadhi oo ay saaran yihiin sameecado waaweyn oo lagu daray kuwax ay samaynayeen jinnada gawaadhidiisu keliyaata si ugu khalkhaliyo kalaabka iyo macaamiishiisa. waxaanu odhan jiray kelmad taariikhda gashay oo uu yidhi maalinkaas, midaasoona ahayd make the club look shabby, taasuna micnaheedu ahayd ka dhig kalaabka mid isku xishooda. intaasi kadib saaxiibayaal, labadii wiil ee faqorada ahaa ee ka yimid tuulada Nile markan waa qaar u sareeya dunida oo sanka taagaya, hanti awoodna ay ka taala dhinac kasta, balse iyagu waxaasi oo dhan haystaa kuna raaxaysanaya nolosha bilyaneernimada, haddana kamiisan dhigin qaar barkinta dheeraysta. taa beddelkeeda hayaanka labadan walaalihii waxa uu markan u muuqdaaba mid bilow ah samaynta iyo ku soo biirista suuqa warshadaynta baabuurta iyo samaynta mid ka mid ah gawaadhidii ugu tayada badnaa dunida oo dhan. inkastoo xidhiidhka uu Henry la lahaa walaalaha uu ahaa mid u horseeday inuu xaqiijiyo guulo waaweyn, haddana markan Henry Ford waxa uu ahaa mid rabay inuu ka takhalluso walaalaha, maadaama uu markan Henry ahaa mid rabay inuu isaga laftarkiisu samaysto warshad isaga u gaar ah oo uu rabay inuu ku soo saaro qalabada uu gaadhigu ka kooban yahay, maadaama uu ka daalay kharashaadka aadka u badan ee uu ku bixinayay soo iibsiga qalabada walaalaha. dhanka kale walaalaha iyaga laftarkoodu waxay qaar sidoo kale ka daalay kibirka iyo khilaafka Henry Ford, maadaamay sheer ku lahayn kumbaniga Ford. walaaluhu waxay ahaayeen qaar ku darsada fikradooda iyo cilmigooda markasta uu samaynayo moodel cusub,
balse Henry Ford ayaa ahaa mid mar waliba u sheegi jiray inay faraha uga qaadaan design garaynta gawaadhidiisa kuna eekaadaan warshadaynta qalabada baabuurta. midanoona ka dhigta walaalaha qaar aad uga diiqadooda hadallada Henry Ford aadna u necbaysta dhagaysigiisa. inkastoo ay walaaluhu ahaayeen qaar ka sameynayay malaayiin dollar oo bilaa riski ah heshiiska iyo ganacsiga ay kula jireen Henry Ford, haddana waxay sidoo kale ogaayeen walaaluhu in ku sii tirsanaanta Henry Ford ay noqon karto hadhow toole mid iyaga laftarkooda ku soo kala jeesata oo dhabarka ka toogata. sidaa daraaddeed sannadu markay ahayd 1913 John Dodge oo ahaa walaalka weyn ayaa go'aansaday inuu iska casilo xubintii uu ka ahaa kumbaniga Henry Ford oo ahayd vice president ama madaxweyne ku-xigeen, isagoona yidhi waxaan ka daalay inaan noqdo jeebka dambe ee Henry Ford. intaasi kadib walaaluhu waxay qaar dejiyaa qorshe ay rabaan inay ku sameeyaan gawaadhi iyaga u gaara, iyagoona u qorsheeyay dhismaha iyo bilaabista mashruucan muddo 18 bilood ah oo quriyaataa. 1 Julaay 1914 walaaluhu waxay ahaayeen qaar soo saaray baabuurtoodii ugu horreysay, iyagoona u bixiyey kombanigooga cusub Dodge Brothers Motor Company. Horace iyo John waxay ahaayeen qaar horey ugu raaxaysanayay sumcadda ah inay yihiin makaanistayaasha ugu khatarsan magaalada Detroit uguna fiican. sidaa daraaddeed la yaab maysan ahayn in maalinkii ay soo bandhigeen gawaadhidooda ay 6,000 oo qof soo buux dhaafiyeen goobtii ay ka dhacaysay daahfurku si ay bal u soo arkaan bandhigga weyn ee walaalaha. gaadhigoodii ugu horreeyey ay suuqa ku soo daayeenna waxau ahaa mid ay u bixiyeen Model 30. gaadhigan oo ahaa mid ku dhaqaaqaya awoodda 35 faras, isticmaalayana injiin 4-cylinder injiin ah, ayaa ahaa mid soo saarayay in ka badan 15 awood faras ama horsepower marka loo barbardhigo gaadhigii Ford ee sidii weyn dunida uga caanbaxay xilligaasi isaga ah ee la odhan jiray Model T. xitaa gaadhigan Dodge Brothers ee Model 30 marka loo eego performance-kiisa iyo awooddiisa waxa uu ahaa xilligaasi mid ku sameynay suuqa baabuurta Maraykanka isbeddel weyn, oo waxa uu noqday mid sameeyay revolution iyo isbeddel cusub. waxa uu ahaa baabuurkii ugu horreeyey ee dhammaanba qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay ay ahaayeen maaddada metalka ama birta, yacni gaadhigan waxa uu ahaa mid ka samaysan bir khaasa. sidoo kale si lamida gaadhiga Ford ee Model T waxa uu ahaa gaadhigan mid uu kicinayay injiinkiisa ama uu isdaarayay sistamka elektarooniga ah oo ahayd markaasi sanca cusub. sannadu markay ahayd 1915 oo ku beegnay sanadkii ku xigay kadib shaacinta kumbaniga walaalaha ee Dodge Brothers, waxay ahaayeen walaaluhu qaar sameeya oo soo saara in ka badan 45,000 oo gaadhi, isla markaasina waxay ahaayeen qaar si gebi ahaanaba suuqa u galay oo laga iibsaday, taasoona ka dhigtay kumbanigii saddexaad ee iibiyey gawaadhidii ugu badnayd gudaha dalka Maraykanka sanadkaasi. sidoo kale walaaluhu waxay ahaayeen qaar sida Henry Ford oo kale aan soo saarin moodalo cusub sanad waliba, balse waxay ahaayeen sida Ford oo kale qaar ku dadaala horumarinta iyo sii tayeynta halkaasi moodel, yacni hadday soo saaraan sanadkaasi Model 1 oo kale sanadka dambe maysan ahayn qaar soo saarayay Model 2 ee waxay sii horumarinayeen modelkii hore. intaasi kadib Dodge Brothers waxay ahaayeen qaar sameynayay noocyada kala duwan ee baabuurta sida baabuurta dalxiiska, baabuurta tagsiilayaasha, baabuurta xaajiyadaha, kuwa shirkaliyaasha iyo sidoo kale kuwa laba shirlayaasha. waqti kadibna waxay ahaayeen walaaluhu qaar u janjeersada samaynta baabuurta taraagyada, kuwaasoona ahaa qaar waqtigaasi isaga ah aad loo isticmaali jiray. marka la weydiiyey sababta ay baabuurta walaaluhu uga qaalisan yihiin baabuurta Henry Ford, gaar ahaanna modelkiisii sida weyn caanka u noqday ee Model T, waxay si yaro fudud ugu jawaabeen sababtoo ah uu u qalmaa raqiisnimadiisa. waxaana halkaasi ka xataatay oo iska cadayd xifaaltanka hoose ee walaalaha iyo Henry Ford ka dhexeeyey. iibka ay walaaluhu iibiyeen 72,000 oo gaadhi sanadkoogii ku xigay waxa uu ahaa mid lala yaabo, taasna waxaaba ka sii darnaydba sanadkii ku xigay oo ay gawaadhidii ay iibiyeen tiro kor u dhaafaysa 100,000 oo gaadhi. sidii la filayeyba Henry Ford muusan ahayn mid ku farxay guushan ay gaadhin walaaluhu. midda shidaalka ku sii shubaysay ayaa ahayd inay weli walaaluhu ahaayeen qaar 10% sheer ah ku leh kumbaniga Ford. faa'iidada ka soo gasho sheerkanna ay ahaayeen walaaluhu qaar ku fangaraynayay oo ku kala waday ganacsigooda. kumbaniga Henry Ford waxa uu ahaa mid u muuqday inuu naas nuujinayo tartamihiisii ugu weynaa ee suuqa. midaas oo uuna Henry ahaa mid uu aad u dhibsaday, isagoona go'aansaday markaan inuu walaalaha ka dhigo qaar haba yaraatay aan faa'iido dambe ka qaban kumbanigiisan. haddaba midani si uu sameeyey Henry waxa uu ahaa mid sameeyey go'aano la yaab leh.
waxa uu hoos u dhigay qiimuhu siinay baabuurtiisa waxaanu kordhiyey xaddigii shaqaalaha ee kombanigiisa midaasoona uga dan lahaa sidii uu meesha uga saari lahaa faa'iidada ay labada nin ee walaalaha ee uu karhay ay iska daldalanayaan sababtoo ah saaxiibayaal marka qiimaha gawaadhida hoos loo dhigo shaqaalaha kombanigana la tiro badiyo faa'iido ma soo gelayso kombaniga balse kombaniga laftarkiisa isaga sumcad ahaan iyo magac ahaanba waa uu sii ballaadhanayuun shaxdan wuu ciyaaray Henry Ford ayuu uga dan lahaa inuu ku cadaadiyo maalgashadayaasha ama shareholderiska inay markay faa'iido ka samayn waayeen kombaniga ay iyagu ugu dambayn dalbadaan in loo soo celiyo saamigii ay ku lahaayeen kombanigiisa sidoo kale Henry waxa uu ka jaray shareholderiskii kombanigiisa lacagtii saami qaybsiga ahayd oo ahayd faa'iidada sanadkaasi uu sameeyay sheerkoodu waxaana loo yaqaanaa difference midaasoona intuu ururiyey Henry uu ku dhisay The River Rouge Plant oo ahayd warshad isaga laftarkiisu ku soo saarayay qalabada uu ka samaynay gawaadhidiisa midaasoona ahayd mid mar labaad dhexda ka jebinaysay walaalaha inkasta oo saaxiibayaal Henry Ford ahaa mid iska saaray qodax uu ku taagnaa dhanka kale Henry waxa uu ahaa mid galay khalad aad u weyn oo ahaa mid sanado badan kasii fikiri doono walaaluhu waxay ahaayeen qaar markiiba Henry la fuulay maxkamad kadib 3 sano ku dagaalamayeen maxkamadda oo uu kiiskooda socday ugu dambeyn walaaluhu waxay ahaayeen qaar kaga guulaystay Henry kiiska waxaana maxkamaddu Henry ku xukuntay inuu bixiyo lacago kor u dhaafaya $2 milyan oo ahayd lacagtii difference-ka ahayd ama saami qaybsiga ahayd muddada 3 sano ay maxkamaddu socotay 1919 Henry waxa uu go'aansaday inuu iibsado sheerkii ay ku lahaayeen kombaniga oo noqday $25 milyan lacagta xilligaasi maantana noqonaysa $100 milyan midaasoona ogolaatay walaalaha mar kalena siisay kayd lacaga oo bada midaasoona si ka daran sidii hore walaaluhu ay ugu sii ballaadhiyeen kuna maalgeliyeen mashruucoogii iyagoona ahaa walaaluhu qaar iska sii watay guulihii ganacsi ay gaadhayeen xagga intii lagu guda jiray xiliyadan ay ahaayeen macaamiisha Dodge Brothers qaar aad iyo aad ugu faraxsan kuna qanacsan adeega iyo tayada gawaadhidooda taasoona ka dhigtay walaalaha kalsooni darteed inay iska daayaan baxaysiimiyay u samayn jireen gawaadhidooda taa beddelkeedana waxay ahaayeen qaar isticmaala magac bixinno ay ka mid yihiin sida gaadhi ay u bixiyeen isaga laftarkiisa ayaaba hadlaya It Speaks for Itself iyo sidoo kale mid kale u bixiyeen lagu tiirsane ama dependability gawaadhidii shirkaddu waxay noqdeen qaar kasbada sumcad aad u saraysa xagga 1916 ciidamada ilaalada xuduudda ee dalka Mareykanka oo adeegsanayay 3 gaadhi oo ka mid ah gawaadhida Dodge Brothers ay ku weerareen koox gang ah oo hubaysan intii lagu guda jiray dagaalkii loo yaqaanay Pancho Villa oo ahaa mid dhex marayay waqtigaasi isaga ah dalka Mexico iyo Mareykanka midana ka dhigtay gawaadhidii ugu horeysay ee aan ahayn gawaadhi ciidan ee adeegsanaa ciidamadu midan oo hadhow talaba door muhiim ah ka qaadan doonta inay shirkaddu walaaluhu kontrak ku qaadato soo saarista iyo warshadaynta iyo samaynta line cusub oo ah gawaadhida militariga iyagoona u sameynaya ciidamada Mareykanka intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee dunida iyagoona ahaa xitaa qaar u sameynayay militariga ambalaasyo iyo sidoo kale gawaadhida daabusha ciidamada xitaa dalka France ayaa ahaa qaar kontrak la saxiixday walaalaha iyagoona rabay inuu sameeyaan qoryaha artilleriga ah gaar ahaan nooca cabirkoodu yahay 155 mililiter midana uu gurtay sumcadda iyo eray bixinta toughness eray bixin ilaa iyo maanta kombanigu uu yahay mid iibgeeya xagga sanadu markii ay soo gaadhay 1920kii uu kombaniga Dodge Brothers noqday kombaniga labaad ee ugu weyn dalka Mareykanka waxaanay ku soo xigeen oo kaliya ta gooreeyay kombaniga Henry Ford iyagoona iibiyey kana raray warshadooda 145,000 oo gaadhi sanadkaasi oo quryaata balse saaxiibayaal taariikh kastaaba dhammaad leh waxaynu soo gaadhnay markaan dhammaadkii walaalaha taariikhdu markay ay marisay 2 January 1920kii walaaluhu waxay ahaayeen qaar ka soo dhaqaajiyay maalinkaasi magaalada Detroit si ay uga qayb galaan bandhig gawaadhiyeed oo lagu soo bandhigayay magaalada New York balse saaxiibayaal markii ay ka soo noqdeen bandhigga way kadib waxa soo ritay xanuun mid ka mid ah walaalaha xanuunkaas oo ahaa pneumonia gaar ahaan waxa uu soo ritay xanuunkan saaxiibayaal ninkii labada walaalaha yaraa ee Horace xagga walaalkiisa weynina waxa habeenkaas mid soo degdega dhankaas iyo sariirtii uu jiifay walaalkiisa yaraa
balse saaxiibayaal John laftarkiisa isagana waxaa soo ritay isla xanuunkan pneumonia oo ahaa midka lagu kala qaado hawada xagga uu Horace ahaa mid ka soo kabanayay xanuunkan maalmo kadib. dhanka kale walaalkiisa ka weyn ee John waxa uu ahaa isagu mid ay isaga xaaladiisu ka sii darayso ilaa uu kaga tegay qof kastoo la joogay maalinkaas murug iyo calool xanuun kadib markii uu 10 cisho kadib xanuunkii u geeriyooday. inkastoo Horace ahaa mid caafimaadkiisii dib u helay, dhanka kale waxa uu ahaa mid la tiiraanyoonaya xanuunkii iyo qalbi jabkii uu ka qaaday geeridii walaalkiis. dhimashada iyo geerida ku timid walaalkii waxay iga dhigan tahay sidii inuu waayay dhammaanba dunidii oo dhan, heeraan gaadhay inaan ka labalabeeyo oo aan sii wadi kari waayo shaqadii kumbaniga. inkastoo Horace ahaa mid isku dayay saaxiibayaal inuu sii wado maamulka kumbaniga, haddana saaxiibayaal waxa uu ahaa dhanka kale mid xaalkiisa caafimaad aanu ahayn mid wanaagsan. ugu dambeyntiina 7 kadib waxa uu Horace ahaa mid go'aansaday inuu isaga tago maamulkii iyo shaqadii kumbanigiisa, isagoona degay guri qasri ah oo ku yaalay agagaarka badda si uu halkaasi ugu soo nasto oo uu niyadda ugu soo dejisto. balse saaxiibayaal tiiraanyo waa loo dhintaaye Horace waxa uu ahaa mid fuulay sariirtii dhimashada. ugu dambeyntiina muddo 11 bilood oo quryaatoon kadib geeridii walaalkii, Horacena waxa uu ahaa mid u geeriyooday xanuun ku dhaca kelyaha oo loo yaqaano cirrhosis, khamradii badnayd ee uu isku daldaliyay awgeed. kadib dhimashadii walaalaha waxaa mulkiyaddii kumbaniga la wareegay xaasaskii walaalaha, waxayna maamulka kumbaniga u magacaabeen nin lagu magacaabi jiray Frederick J. Haynes oo ahaa ninkii ugu dhowaa walaalaha, khibrad ahaanna ahaa midka ugu aqoonta badan kumbaniga marka laga yimaado walaalaha, isla markaasina ahaa mid fahansanaa fishankii iyo aragtida ay ka lahaayeen walaaluhu kumbaniga. waxaanu ahaa mid sii waday hogaaminta kumbaniga. haddaba intii lagu guda jiro xukunka Frederick, kumbanigu wuxuu ahaa mid soo saarayay moodalo cusub, taasoona ugu dambeyn si weyn kor ugu qaaday iibkii iyo wax soo saarkii kumbaniga. sidoo kale Frederick waxa uu heshiis kaashi la galay kumbani kale oo ay lahaayeen 3 nin oo walaala oo la kala odhan jiray Robert, Joseph iyo Ray. kumbanigoogana waxaa la odhan jiray Graham Brothers. waxaanu ahaa Frederick mid waday qorshe iyo iskaashi ay labadooda kumbani ay si wadajir ugu soo saarayaan taraagyada waaweyn ee qaada xamuulka. balse nasiib daro Frederickna waxa uu ahaa mid geeriyooday 5 sano kadib qabashadii maamulka kumbaniga oo ku beegneyd 1925. intaasi kadib mulkiilayaashii kumbaniga oo ahaa saaxiibayaal xaasaskii walaalaha waxay ahaayeen markan qaar go'aansaday inay gebi ahaanba iska iibiyaan kumbanigii, waxayna ugu dambeyn ka iibiyeen bangi maalgashi. waxaanu bangigu ka siistay kumbaniga xaasaskii lacag dhanayd $146 milyan oo ahayd lacagtii xilligaasi, una dhigmisay lacagta maanta $2.1 bilyan. kadib la wareegidii uu bangigu la wareegay kumbaniga, waxa uu noqday kumbanigu mid uu ku imaado hoos u dhac aad weyn, khibrad la'aanta baahsan iyo maamul xumada maamulka bangiga awgeed. waxaanu ku 1927 oo ku beegnay sanadun kadib uu hoos ugu dhacay qiimihii kumbanigu wax ka badan 40% iibkii iyo wax soo saarkii kumbaniga, taasoona ka soo kaxaysay kumbaniga kaalinta labaad, ugu dambeyntiina keentay kaalinta 13aad ee suuqa kala iibsiga gawaadhida ee dalka Mareykanka. taas baana ka dhigtay inuu noqdo kumbanigu mid mar labaad dib loo iibiyo, balse markan waxaa soo dalbaday kumbaniga inuu iibsado nin lagu magacaabi jiray Walter B. Chrysler. waxaanu miiska soo saaray $170 milyan oo u dhigmasa qiimaha maanta $2 bilyan iyo $1. intii uu xukumayay kumbanigana waxa uu soo koobay magacii kumbaniga oo halkii markii hore ahaa Dodge Brothers waxa uu ku soo koobay Dodge. waxaanu xoogga saaray soo saarista gawaadhida qiimuhu hooseeyo sidii ay samayn jireenba kumbaniyada Ford iyo Chevrolet oo kale, taasoona ugu dambeyntii kor u qaaday guushii ganacsigan. 10 sano ugu xigay kumbaniga Dodge waxa uu ahaa mid soo saarayay isla markaasina horumarinayay gawaadhi awoodoodu sareyso, isteel ahaana ahaa qaar suuqa gawaadhida ku cusbaa wakhtigaasi isaga, taasoona si ka daran sidii hore kor ugu sii qaadayba sumcaddii iyo sharaftii kumbaniga. waxaana ka mid ahaa gawaadhidaas Dodge Challenger iyo sidoo kale Dodge Charger oo noqday gawaadhidii ugu guulaha badnaa laguna iibsiga badnaa kumbaniga 10 sano ee ugu dambeeyay. sidoo kalena kumbanigu waxa uu ahaa mid ku farayareystay gaadhiga awoodda badan ee xaajiyadda ah ee la jaan qaadaya dunida cusub ee casriga ah, waana xaajiyadda uu kumbanigu u bixiyey Ram. tanina waxay ahayd saaxiibayaal qisadii walaalaha ee Dodge Brothers iyo ballantii adkayd ee ay la galeen naftooda ilaa ay ka noqonayeen qaar ka dhabeeyay rumaynta riyadoodii, si lamidana soo taabtay fikta sare ee hodantinimada una raaxaystay sumcad iyo sharaf midii ugu saraysay noloshooda.
balse ku geeriyooday heerkii ugu sarraysay dhallinyarnimadooda iyagoo maraya kagana tegay dunida da' aad u yar balse ku soo kordhiyay dunida ikhtirac iyo shay aad u weyn. haddaba yeelo adiguna han sare si aad ugu noolaatid nolol sare. cabdiqani tobtin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.